dadweynaha ayaa maanta garoonka aadan cadde afaafkiisa hore ku soo dhaweeyay musharax maxamed cabdulaahi farmaajo oo soo gaaray magaalada muqdisho. taageerayaasha farmaajo ayaa xirnaa astaana ay ku muujinayeen taageernimada ay u hayaan musharaxa u taagan xilka madaxtinimo ee dalka. soo dhaweynta shacabka kadib ayaa maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu la hadlay warbaahinta isagoona u mahad celiyay shacabka soo dhaweeyay. waxa uu kaloo bulshada Soomaaliyeed u sheegay inuu yahay musharax u taagan qabashada xilka madaxweynenimo doorashada la filayo in ay dalka ka dhacdo. dhammaan inaan u hambaliyeeyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo dhibaatada ay soo mareen adkaysigoodii in maanta Soomaaliya ay joogto isgoys wax la yiraahdo ama crossroad oo dalkan lagu raadinayo inuu ka yimaado isbedelkaasna waxaan rajaynaynaa inuu noqdo mid u shaqeeya maslaxadda ummadda Soomaaliyeed guud ahaan waxna ka bedela xaaladda nabad xumada ah iyo nolol xumada dalkan ka jirta. anigana waxaan aaminsanahay inaan ahay hoggaan u yimid halkan doorashadan uga qayb galaya inuu dalkan keeno nabad waarta iyo nolol wanaagsan oo qof walba oo Soomaali ah uu maxaan ku raahdaa uu ka faa'iideysto. musharax maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dhanka kale u hambaliyay 73 sano guuradii ka soo wareegatay markii la aasaasay ciidanka booliska Soomaaliyeed. sanad guuradii 73 ee ka soo wareegtay aasaaskii ciidanka booliska Soomaaliyeed. waxaan ugu mahad celinayaa sida hagar la'aanta ah ay ugu huraan maalin walba naftooda si dalkan ay xasilooni siyaasadeed ama xasilooni nabadgelyo ay u keeni lahaayeen. mar walbana waxaa la rabaa inaan la iloobin aan xasuusnaano sida geesinimada leh ee shacabka ay u difaacaan. waxaan rabaa oo kale inaan halkan uga faa'iideysto inaan u hambaliyeeyo xildhibaanada cusub oo la soo doortay. waxaa baryahan soo ifbaxayay in musharaxiin ama murashaxiin qaarkood aysan kalsooni ku qabin shacabkooda iyo kalsooniba. waxaan ku boorinayaa musharaxiintaas u tartamaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed. waxaan ku boorinayaa inay iimaansadaan shacabkooda iyo xildhibaanada la doortay kalsoonida ka raadiyaan aysan aadin dawladda shisheeye iyo wax la mid ah. maxaa yeelay dalkan Soomaali waa iska leh xildhibaanadana waxaa loo doortay inay noqdaan codka Soomaaliyeed. marka iyagu baa iska leh awoodda qofkii madax noqon lahaa